كتاب الله أحيانا وبالتوحيد أوصانا ففي قرآننا نور يضيء ظلام دنيانا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وعشركii konton iyo shanaad qeybtii labaad ee dhisidda ubadka ee barnaamijkeenii barbaarinta ubadka. waxaaynu kusoo guda jirnay siyaabaha ubadka looga dhiso qaabka ay u dhexgelayaan bulshada. ilaa waxaynu kasoo qaadanay 7 qodob. maantana waxaynu qaadan doonaa 2 qodob insha allahu tacaala u dambeeya. qodobka 8aad waxa weeye markaa in ubadka markaa la baro oo lagu tababaro macnaha inay soo booqdaan oo ay u tagaan oo ay soo eegaan dadka markaa qaraabada la ah ee wanaagsan. markaa macnaha qaraabadooda waa maxay iyo faamiliga cidda u dhow inay markaa u tagaan waxay ka mid tahay waxyaabaha ubadka markaa dhisa kana dhisa weliba dhinaca dhexgalka bulshada. waxyaabaha ay ka caawinaysa waxaa ka mid ah kow dee ubadka inay markaa ogaadaan macnaha usrada iyo qoyska ay kasoo jeedaan macnaha inay dee jiraan kuwo kale markaa oo usratun saaniya baa layaabay noqonaysaayo macnaha saasay u ogaanaya inayna dad badan leeyihin. abtiyaashii buu tegayaa, habayarihii oo kale, eedooyinka, waxaasoo dhan buu ogaanaya. talabaad waxay ubadka ka saacidaysaa tadriiba calaa silati alarxaam, dee macnaha inuu raximkiisii xidhiirinayo ilmihii isagoo yarba ayaa markaa lagu tababaraya oo ku baranaya. saddexaad waxaa la yihahdaa macnaha qaraabada dhexdooda kalkacaylka iyo maxabada isu hayaan ayaa markaa kor noqonaysa marka oo zaaid markaa noqonaysa. ta ku xigta waxaa iyaduna muhimkaa afraadi ilmaha waxay ku reebtaa markuu yar yahay macnaha raad aada u wanaagsan bay ku reebtaa oo hadhow markuu weynaado macnaha wuxuu soo xasuusanaya xataa aan maskaxdiisa ka baxaynba markuu yaraa gurigii ama eedadii ama habaryartii markaa uu habeenka u hoyday ama maalin jimcaha oo kale uu seexday ama maalin khamiis oo kale uu tegay macnaha raad bay iyaduna ku reebaysaa ilaa xataa weyn aan markaanu ilaaweyn. tashanaad waxaa la yidhahdaa ilmuhu wuxuu ka faa'iidaya waxaa ka mid ah dee qaraabada saalixiinta ee wanaagsan wuxuu ka faa'iidaya cilmi buu ka faa'iidayaa macnaha waa maxay aqoon buu ka faa'iidayaa cibaadadu ka faa'iidayaa salaax iyo wanaag buu ka faa'iidayaa. waxaa laga yaaba waxyaabo fara badan hadduu guriga u tago uu kasoo kororsado marka uu kasoo faa'iido. marka waxaa la yihahdaa waxyaabahaasna waxay ka mid yihiin siyaabaha ubadka markaa loogu tababaro inay soo booqdaan. markaa waxaa inoo cadaynaya markaa oo si fiican inoo baraya ibnu cabaas radia allahu canhu ayaa wuxuu ubadkeena barayaa macnaha inay soo booqdaan markaa iyo waxyaabaha markaa laga faa'iidayo. waxa uu leeyahay waxaan markaa xadiidka markaa ay soo saareen bukhaari iyo muslimba ayaa waxa uu leeyahay ibnu cabaas waxaan soo booqday gurigii habayarta markaa maymuuna. marka nebiga ayaa waxa uu ku qorna habeenka inuu gurigeeda marka uu tago ilaa xaaskiisii bay ahayd. marka wuxuu markuu nebigu cishaayigii iska soo tukaday ayuu markaa gurigii yimi kadibna wuu iska seexday. intaanu seexan may 4 ragcadood marka ayuu tukaday kadibna wuu iska seexday buu yiri markaa nebigu calayhi salaatu wasalaam. kadib markaa wuu soo kacay wuxuuna markaa yidhi waa maxay naama algulayimu macnaha waxa weeye hal naama sabiyu marka ilmihii markaa miyuu seexday. kadibna ama wuxuu yidhi kelmad saa usoo dhow buu ku yidhi. kadibna maxay waan soo kacnay buu yidhi waxaan markaa istaagay dhinaca marka nebigu markaa uu tukanaya waxaan istaagay dhinaca markaa bidixdiisa uu soo wareejiyay markaa wuxuu isoo wareejiyay markaa dhinaca midigta. kadibna 4 markaa waa maxay ayuu markaa tukaday 5 ragcadood iyo markaa tukaday kadibna markaa 2 ragcadood buu ku xajiyay kadibna uu iska seexday markaa nebigu weyn ilaa markaan sii maqliyay markaa khuuradiisii markaa kadib markii dambe wuu soo kacay salaadii buu saa ku aaday. marka halkaa waxaad ka arkaysaa ibnu cabaas wuxuu sheegay in guriga habeertii markaa waa maxay u hoydayba uma halka habeenka uu joogay. marka muhiimadu waa maxay fara badan bay ubad ka faa'iidayaan. dee inaga dhaqankeena ama sida Soomaaliyeed u badan nahay dee ubadka maalmaha ciidun baad dhahaaba yaro yar hadda eedaya soo eego maalmaha malaxa qul ciidka dee ka soo qaata. marka laakiin maalintaas baa laga yaabaa inuu eedadii aanu sanadkaaba aragin maalinta ciid adxada ama rabaanta laga yaabaa inuu arko xilliyada kale aanu la kulminba ama walaalihii aanu arag cid kale aanu ka arag. marka waxyaabo ubadka saacida waxaa ka mid ah waa la yiraahdaa kow macnaha haddii saaxiibadii kale guriga ay ugu yimaadaan isagoo gurigooda ugu tag wax la soo diyaar wax la soo akhriyo haddii taasi aanay suurtoobaynin
dayr markaa family intii kale qaraabadiisii markaa waa maxay ilmaha loo sii daayay sida macnaha fasaxo kale uu yahay markaa asaaska u dambeeya waxa weeye حضور أطفال الحفلات المشروعة والأعراس مركا حيا أوبت كساعد إن برشاش فعم ده حجلان وحكمد أوبت كإن مركا محي وقت الله سيو هدي مركا أي شيران دي حفلة الله قبان يا مركا مشروعة أو دي مركا بنانا مكان حران أهين إن مركا محي لوك حيو إيوه محي شدو كلا دي هدو أروس شيرو مركا شوكنا دي حاسف عن مركا وقف سومي وحيا متخ عن الصمين دينتي كهر إيمانية كان مركا إن لوك حيو waxa yaxyaaba ka faa'iidayaan waxa kamid de marka inay bulsho halka ku arkaan kala duwan marka sidoo waxay ka faa'iidayaan waxa arkayaan marka dad waaweyn meesha jooga iyo marka dad waa maxyeero meesha imanayo fara badan waxyaabaha kale ka faa'iidayaan waxa kamid ah loo aad u saameeya macnaha de farxadda halka ka jirta ee wanaagsan dadku waa maxay isugu hambalyeynayaan isugu ducaynayaan farxadda isla qaybsanayaan macnaha jawiga ay guriga ku jireen markay ka yimaadaan waxay soo galiyaan marka jawi kale iyo xaalad kale marka oo ka duwanba bulshada maxay kala duwan halka isugu imanaysa ayaa marka ka qayb qaadanayaan kaana waxa marka inoo cadeynaya marka nabiga kaleeyhi salaatu wasalaam ayaa marka waxa uu de ubadka yar iyagu arooska jooga ayuu marka arkaya waxna marka maxay kuma inkirayo mana diidayo imaatinkooda waxana marka inoo cadeynaya xadiiska marka uu wadanayo Anas bin Malik ay soo saareen marka Bukhari iyo Muslim ayaa waxa uu leeyahay nabigu waxa uu arkay macnaha dumar iyo ciyaal yar marka ayuu arkay waliba waxay ahaayeen marka dumarkii iyo ciyaalkii marka ansaarta ayay ahaayeen kadibna marka waa maxay xilli marka maqbiilina min arsin macnaha aroos iyo maxay ku mashquulsan marka oo jooga kadibna marka nabigu reer ansaarba marka u ducaynaya waxa uu ku yiri Allahumma antum min ahabbi an-nas ilayya macna ilaahay marka maxay wuxuu marxaati ka yahay oo og yahay macnaha dadka cid igu soo dhow markaan aadka u jecelahay ina marka idinka tihiin marka halka waxa riixayska wax laga faa'iideysanayaa baa la yiraahdaa macnaha de nabigu sidoo u jeclaa marka uu ugu ducaynayay macnaha dumarka marka ansaarta ah iyo ciyaalka yari ubadka yar waa maxay xafladda halka waa maxay la jooga marka iyo sidoo wax laga faa'iideysanayaa de marka ubadka ciyaalku marka ay xaadiri karaan marka ay joogi karaan aroosyada oo kale marka waxa kale laga faa'iideysanaya waa maxay de tarxiibka marka qofka de aruuskaas oo kale waa maxay in la soo dhaweeyo oo si fiican maxay looga qayb qaato marka halka waxay noogu dhamaatay waa maxay qaybta marka ubadka laga dhisay dhinaca marka dhexgalka bulshada waxaynu ku soo qaadanay waa ilaa 9 qodob baynu ku soo qaadanay marka 9 qodob waalidku waxa looga baahan yahay ubadka si fiican waa maxay ugu tababaraan iyagoo marka markasta eegaya marka dhinaca positive-ka ee wanaagsan ee saxda ah toolmoon marka wixii inta marka ubadka dhibaato xagga bulshada kaga imanayana ka ilaalinaya marka waxaan bilaabi doonaa qaybaha kale casharka intaas ku soo gabagabeynaa maanta wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa a'lam